gudoomiye xisbi wasiirka arrimaha gudaha mujaahid in burco gaarigiisii watay iyo kuwii daba socday shiid lagala daaro oo lagu dhaawaco oo gaarigiisa laba dhagax ku dhacaan daaqada fadhiyey waxay ahayd raggii halkaa jooga waayarkaan markaa waa intaa daloon taasaa daahday wixii isaga taageersanaa fal kale oo kasii daran bay fuliyeenoo gudoomiyihii kale murashaxa ahaa xisbigiisa bay dhinac dhan magaalada ka saareen arrimaha caynkaasi waana soo noqon ilaa natiijada laga gaarayo oo dowladda dib loogu cusboonaysiiyo qofkii la doortay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliland yarka taageerayaasha ah siyaasiyiinta tartanka wada burco shalay arrinaba ka dhacday ciidii bilood hadday cid caqli xun ahayd waayeel kale inuu arrintaa kol kalaba gacanta ku dhigaabe waayo intaan tartamaynay nuurigeen baa inuu dhawaato qabnaa waxaan xiriirinay gudoomiye xisbi wasiirka arrimaha gudaha mujaahid in burco gaarigiisii watay iyo kuwii daba socday shiid lagala daaro oo lagu dhaawaco oo gaarigiisa laba dhagax ku dhacaan daaqada fadhiyey waxay ahayd raggii halkaa jooga waayarkaan markaa waa intaa daloon taasaa daahday wixii isaga taageersanaa fal kale oo kasii daran bay fuliyeenoo gudoomiyihii kale murashaxa ahaa xisbigiisa bay dhinac dhan magaalada ka saareen arrimaha caynkaasi waana soo noqon oo ninka wada howlgala ilaa natiijada laga gaarayo oo dowladda dib loogu cusboonaysiiyo qofkii la doortay waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliland yarka taageerayaasha ah siyaasiyiinta tartanka wada in aad iyo aad loo qabto wax kasta oo abuuri kara fidmeer wixii ka dhacda dhammaan odayaasha laga hadlay intay yiraahdeen baan ku raacsanahay xaaji maxamed siciid maanta aad u kaftooyna aad baan u faraxsanahay waayo waxa joogsanaa xaaji inta badan mikrofoonka uu ka gagaba jiro ma kaftami jirin laakiin maanta si waayeelnimo iyo saaxiibtinimo kaftamay taasina waa inuu gudoomiye